هو باقي لا يزول daawadayaal saacaddu waa 9 saac ay habeenimo sida aad u jeedaan caawa halkan oo ah markaska weynaa ee Allah u naxariistay Sheekh Aadam Sheekh Umar Sheekh Ali Sheekh Aadam Dheere waxaa ka socdo dhafarka siyaarada 17aad waxaa ka soo qayb galay dhafarka culimo aad u fara badan oo halkan u yimid sida u xusi lahaayeen caalimkooda weynaa Sheekh Aadam Dheere النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن سلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير داب مسكنه وإن بناها بخير داب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب دار نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية أمال توفيها فمر يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يضويها لا
waxaan la hadalnay qaar ka mid ah mashaa'ikhda iyo xertii qaybta ka ahayd dhafarka. waxaan joognaa caawa oo sabti ah taariikhdana ku beegan miilaadiga 19 bisha 6 2021 waafaqsan bisha hijriga 8 bishii 11aad 1442 waxaan joognaa ziyaaradii sheekheena jaliilka weynaa sheekh aadan sheekh Umar sheekh Ali ku magac dheer sheekh aadan dheeri ziyaarada Allah noo aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar labaad iyo mar saddexaad ayaa u mahad celihaynaa nagu kulmiyey ziyaaradan weligaan awliyada ilaahay ka mida ziyaaradiisa sheekh aadan dheere khayr Allah u jaaziyo sheekhu cawada dhafarkiisaan joognaa ilaahay ayaa mahadaynaa subxaanahu wa tacaala nagu soo kulmiyey khaasatan haddana waxaan u mahad celihaynaa sheekha saaxibul walaayaha ah sheekh cabdirasaaq khayr Allah u jaaziyo oo sabab nagu noqday halkaan inaan ilaahay ku caabudno cibaadadiisa iyo tawxiidkiisa aan ku dhafarno anakoo doonayno inaan u hadiyeyno thawaabka soo xasilay sheekhayna weliga ilaahay khayr Allah u jaaziyo wuxuu ka mid yahay sheekh aadan dheere mashaa'ikhda taariikhda kule Soomaaliya oo soo tarbiyeeyay adoomanka ilaahay caabudaya badankood mashaa'ikhdaasuu ka mid yahay khayr Allah u jaaziyo macruuf weyn amba ihsaan weyn ayuu dhaxdhigay wadankan Soomaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa na soo waafajiyey dhafarkan iyo ziyaaradan weligii ilaahay ee sheekh aadan dheere inaan caawa ka soo qayb galno ilaahay noo qadaray ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala walaalayaal sida aad arkaydaan waa habeen xubin dambe waa 8 saac iyo bar waa waqtiga aad u fadliga badnaa waxa la akhrinayo waa tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah oo yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo aqbalo khayrkan iyo nafaxaadkan oo noo daa'imiyo sheekhi weligii ilaahay yahay ee ziyaaradan dhafarkiisa caawa la joogana ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa aqbalo khayrkan iyo nafaxaadkan Allah ka thawaabiyo annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala nafaxaadkiisa iyo anwaartiisa Allah na siiyo weligaas ilaahay siyaaradan ayaa noqonaysa siyaaradii 17aad ee lagu qabto markaska weyn ee Sheekh Aadan Dheere ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan sanad kasta xilligan oo kale in halkan lagu qabto Saadaam Cabdulle Siyaad shabakatul mutahaabuna fillah markaska weyn ee Sheekh Aadan Dheere magaalada Muqdisho